أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبني سلام يا دمانتي ولا ليال waxaan jecelahay inaan waxoogaa in la yara wadaago, especially waxaan jecelahay inaan la wadaago waalidiinta Soomaaliyeed ee haysta caruurta special needka ama caruurta qaba baahiyaha gaarka. sideedaba waalidnimadu waxa weeye mas'uuliyad aad iyo aad u weyn una culus, waana darajad qof bin aadan uu gaaro darajada ugu sareysan aanu aaminsanahay. haddii aad waalid tahay, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay darajada ku siiyay wayna ilaahay ugu mahadnaqdid, waayo waa nimcad iyo hadiyad ilaahay bixiyo oo ciduu doona siiyo. cidda aanan haysana ama dadka aanan haysan ama dadka rajeynaya ee sugayana waxaan leeyahay ilaahay darajada hayna gaarsiiyo, hana inay waarsaaqo awlaad baariina oo caafimaad qaba insha Allah. inta hadda halka kaga soo gudbo, haddii aad tahay waalid sideedaba iyadoo mas'uuliyadda kugu culus tahay oo caruurtan yihiin amaano ilaahay ku dhiibtay, lagaana rabo sida ugu wanaagsan inaad u koriso, aanad ka dhista dhan walba, dadnimo ahaan, diin ahaan, akhlaaq ahaan iyo si walba, oo ka dhigtid dad hadhow tolo jeerniga nolosha ama si ambaqaada food stepka ay dadku uga tagaan ama dhaxalka hadhow tole looga tagaya nolosha oo meel gaarsiin kara dhaxalka looga tagay ee adduunka. waayo ilaahay adduunka markuu dadka keenay wuxuu yiri khulafaa baatiin, waa dadka yani dhulka ayaa dhaxasheen, marka jiilba jiilka uu ka dambeeyo waa sii dhaxlaya nolosha. marka noloshaas dad dhaxla oo sida ugu wanaagsan ilaahayna inoo asteeyay ku socda inay noqdaan ayaa muhiima ilmahaas inuu noqdo. as a waalid, aniga oo runtii waalid haysta ilmo qabta baahiyaha gaarka ilaahay wuxuu igu nimceeyay gabadh autistiga, at the same time na partial impairment haysata, partial hearing impairment haysata ayaa ilaahay igu nimceeyay. alxamdulilah, she is a blessing, waa nimcad, waa gift maalin walba ilaahay keenana lagu shukriyo ilaahay, iyada iyo awlaada kale ilaahay igu arsaaqayba. haddaba journeygaas marka aad gasho at the beginning, markaad bilow aad ku tahay, runtii waa hawsheeday wadataa, waa journey hawshiisa wataa, waa murugo, waa runtii dee dhan walba runtii waxaad noqonaysaa qof emotional oo expect garaynaynin yani nolosha, maadaama nolosha waxaan oo dhan cilmi qayb yihiin, inuu qofku garan wuxuu la kulmayo wax yani kugu adag bay noqonaysaa. laakiinse part of iimaankeena waxaa kamid ah inuu qofku qadarka khayrka iyo sharkiisaba inuu mar walba rumeeyo. iimaankaguna ma buuxsamayo haddii aad noqon weydo qof wixii ilaahay ku keena ku shukriya, ku xamdiya, qaatana. as a muslim intaasan kaga duwanahay dadka kale, alxamdulilah rabbil caalamiin calaa nicmat alislaam. maalin kastana waa inaan intaa ku celcelino runtii inaan ka mid nahay ummadda nebi maxamed ee ilaahay ugu nimciyey islaamka, oo ilaahay u astay inuu noqdo diinta keliya ee adduunkan runtii maamusha dadka biniaadankana noloshooda saxda kuna hagtan dariiqa saxsan adduun iyo aakhiraba. inaan dadka ka mid nahay baa alxamdulilah. jeernigan markaad galayso waalid ilmo baahiyaha gaarka qaba markaad haysato, uu ka duwan yahay jeerniga waalidiinta kale. baatika noloshaada oo dhan waxa weeye waa ka duwan yahay. waxaa laga yaabaa inaanad seexan xilliyo ay seexdaan waalidada kale, waxaa laga yaabaa inaanad cuntayn xilliyo ay cuntayaan waalidada kale, waxaa laga yaabaa inaanad bixin xilli ay baxaan waalidada kale. noloshaada oo dhan ilmaha ayay ku xidhan tahay, routiinkaaga oo dhan wuxuu ku xidhan yahay ilmahaasaad la waqti noqonaysa, la nolol noqonaysa, la jaan qaadaysa. alxamdulilah rabbil caalamiin. ilmahana wuxuu ku barayaa wax badan nolosha. runtii ani gabadheeda wax badan ba i bartay, waxayna i bartay awoodo aanan moodin inay ku jiraan baan ogaaday inaan leeyahay, iyadaa ka dambaysa inaan ogaado. alxamdulilah, sabirka ayay i bartay, commitment waxa la yiraahdo i bartay, waxyaabo fara badan bay i bartay. caruurtan waa very talented, waa caruur ka maskax badan caruuraha kale, just inaa jawigii ay noloshooda ku maareyn lahaayeen, dibadda ku noqon lahaayeen, ay dadka u dhexgeli. ilmahan sheel buu ku hoos jira, waa ilmo sheel ku hoos jira ood rabta inaad kasoo dhex saarto environmentkiin u create karisa adii awaalid ahaan lagaa rabaa. journey dheer baa lasoo maray gabadheeda, alxamdulilah rabbil caalamiin. maanta 65% waxaan odhan karaa wax badan waan kasoo gudbay, waanan inila sheergarayn doonaa. hintiga ugu horeeyaan siinaya waxa weeye ilmahan waxaad ula dhaqantaa ilmo sida caruurta kale haysato oo kala, si different ha ula dhaqmin. waxa ay sameynayaan samee ku dhe, meeshay tegayaan geey. ilmo bulshadaad ku dhex siidaysay ha noqdo, bulshadanu ilmahani baranaya siduu u dhexgeli lahaa. ku celceli, ha ka niyad jabin. emotional baad noqon, waa lagu judge garayn, dhibaatooyin badan baad kala soo kulmaysaa markaad publica u baxdo, laakiin maalin you will be there. maalin maalmaha kamid you will be there.
ilmahaagaasoo ku garab socdo oo ilma أنا مرة بلقي قرنين منو باهية قارة قبا حتى أيام قاعد تسقبسين سن إسرائيليين الحمد لله رب العالمين واحد بدن بانصوم مري وانا نلقى يفسد دوله بإذن الله وحكونا don't give up on your child برمرو البكولا هاي إلهي نسكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.